وما سنتها راديو جبلين haddii aan warbixin ka siiyo qasaaraha meeshan ka dhacay qasaare aad iyo aad u culus baa ka dhacay shacabkii garilay oo loo qodayo cilbiyood loo qodayo yaa waxa soo weeraray nabadiidkii al-shabaab haddii ay soo weerareen ciidan darawiishta Jubbaland ah meesha iskood gareynaysay oo waardiye ka ahayd iyagii bay dagaalkii asaga ahaa waxay meesha ku soo galeen jiib gacmeedyo waryaha RPG-ga la yiraahdo BKM-yo awood iyada ahayd ka tira badan baa meesha yaa soo gashay dagaalkii oo socda laakiin waxa tagay ciidamada darawiishta Jubbaland oo xiradeeda 3 kiiloomitir ay noo jirtay meesha iyada ahayd dagaalkii uu sii cuslaaday markii ugu dambeysayna waa la baacsaday oo iyagii baa jabay ma garata waan gartay goorma ayaa marka hore dagaalku bilaabmay ceelka si la qodayay muxuu ahaa ceel garilay loo qodayo oo wuxuu ahaa deegaanka garilay loo qodayo oo shacabkaas oo man oo aanan biyo weligii aanan helin ceel biyooda aanan helin ceelkii koobaad oo loo qodo ahaa hadee qisadii uun ka jirtay hiiraan ka jirtay baa ku dhacday oo ceelashii la gubahayay teedii oo kale toon baa ku dhacday meeshaasna waxa ku dhintay shacab 11 ah oo laba dumar yihiin baa ku dhintay ma garata waan gartay goormu bilaabay dagaalka wuxuu bilowday 11kii oo 10 dhiman buu bilowday salaadii xilligii loo weysaysanayay buu bilowday adiga goor hal saac meelahaas ana waa soo gaaro adiga 2 saac oo toos u socda waan gartay goobta riigga laga qodayay ama ceelka laga qodayay ciidamada ku sugnaa intay leekaayeen horta meesha xarooyinka anaga ahaa u yareen u dhawaa ciidamada hadii waxa haysto waa niman saraakiil ah xukumo aniga meesha gudoomiyihii baan ahaa oo shacabka la shaqeeya ciidan ahaantaas kale iyo ma qiyaasno laakiin rag lagu soo gaaray dagaalka iyagoo hayo oo goobtii wili ka diranaya lagu soo gaaro ciidamadii kale oo xerada u dhaweeyo 3 kiiloomitir u jirtay inta ay soo lugeynayeen ay ku soo gaareen buu ahaa waa gartay dadka hadda shacabka ah dhintay waa imisa shacabka meesha ku dhintay waxaan shacab ahayn meesha kuma dhiman shacabka ku dhintay waa 11 weeye oo laba dumar yihiin waa gartay waxaa nagu maqaalaa in rag dad injineer ay ku jiraan dadka dhigeelooday oo dadkii ceelka wax sameynayay ah iyada arintaasi sax miya waa kamid weeye ragii ceelka wax ka qodayay geerida kamid weeye waa shacabka aan sheegayay kamid yihiin dagaalna hadii ama habeen buu ku galaa ama maalin buu ku galaa mar walbaba waxaan u taagnayn cadowga asaga inaan iska celino midaan u taaganahay bay ahayd dagaal baa meeshii ka dhacay waa dagaalada Soomaaliya ka dhacay oo kaleeta midkaas oo kamid ah oo kaleeta dhacay hadii la dagaalana goobta qola u hari jirtay qoladii u hartay oo goobta xanatay anaga noqonay iyagana wixii qasaare oo gaari karay way gaareen oo kulli hadda ilaa 6 ruux meydkooda waa la arkay goobtina anaga u harnay ilaa baacsi dheer baa la baacsaday hadda iftaan aan kula hadlay ciidamada qaar baan wali iimaaneen oo ku sii maqan iyagana weerarkii bay ahaayeen wixii ay qaateen moogii wixii markaa iyada la arko dadkii dagaalayay ay dul istaageen 6 ruux bay ahaayeen laakiin qasaarahooda inta uu ka badan yahay hadda goobtii anaga gacanta ku hayno laakiin hadii maxaan gacan ku haynaynaa meeshii dagaal baa ka dhacay wixii gacanta lagu hayay oo ceelka meesha laga qodiyay ahayd hadda anaga gacanta ku haynaa laakiin wixii wax noo qodayay meeshii iyada ahayd baa ay ku gubteen waxa la gubaya waa baabuurtii weeye baabuurtana waxa weeye bidhaantooda waa bidhaan dheer waxa weeye qoryaha ay ku gubayaan waxa weeye waa RPG 7 iyo qoriga jiib gacmeedka la yiraahdo oo garabka laga tuuro oo kuwa baabuurta aanan ahayn hadee waxa weeye wixina waa habeen difaaca qaybta ugu dhoway soo galeen dagaalkii intuu socdayna baabuurtaas ay beegsadeen marka wiishashkii iyo waxay gubeen iyo gaadiidkii kale ee ceelka lagu qoday sidaas weeye hadda maxaa idin qorshe ah hadii ba arintaasi ay dhacday qorshaha xiga marka hore waxaan baa u dirayaa shacabka deegaanka garilay oo gudoomiyaha u ahay waxa carrada hadda ka jiro dawladda Jubbaland madaxweynaheeda baaq buu ku baaqay in la iska celiyo argagixisadaas adduunka dhamaan
uu la dagaashan yahay dowladda iyada dhaxa baaq bay ka soo saartay oo in lala diriiraa shacabka dhammaan inay wada howl galaan shacabka aan mas'uulka aan ka ahay oo deegaanka Gariley waxaan baaq ugu dirayaa inay arrinka asaga ka dhiidhiyaan qaataanna madaxdooda hadday Jubbaland tahay iyo hadday heer federaal ay tahay madaxweynayaasha Axmed Maxamed Islaam iyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ama mirtii ay fareen oo shacabka ay fareen annakii asaga ahaaba faraya in ay ka qayb qaataan dagaaladaas aan faraya waxaan baaq kale taan u dirayaa dadkan tabaalaysan oo biyaha loo qodahayay abaarta adagna ay hayso aanan haysanin biyo dhaamin aanan haysan oo biyo dhaamin u baahan raashin u baahan oo badeecada ay ku qaalowday oo macnaha wixii ay isticmaali lahaayeen biyo hore ugu isticmaalay iyo wixii ay haysteen haddii hataa sanada hadda aaran ay noqoto waxaan leeyahay sanada hataa wax weyn bay haddana iyada hataa u sii dhimi kartaa xoolihii oo aad u xaasay wax badan oo kale u sii dhimi kartaa kuwana gacantoodaba way daysay xoolihii haddii maba haystaan waxaan baaq u dirayaa maamulada dowladda hadday tahay iyo dowladda federaalka iyo dowladda Jubbaland inta deeqda bixiso dhammaan waxaan leeyahay dadkaas musaacidaha lala soo gaaro hay'adaha samafalka iyo cid kasta oo deeq bixiso hala soo gaaraan baan leeyahay jaariyada Soomaaliyeed intaba